السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت بان idin rajaynaya walalaha sharafta leh waayadan waxa aad inugu soo badanaya dadka la dhiban dhigyarida ama aneemiga ama xanuunka aneemiyada oo hayo ee dhiig uu ku yar yahay. waxa jiraya gabdho cagajiida oo aad arkayso iyadoo wali gabadha oo aan uurba qaadin in dhiigu ka yaraanayo. waxaad kula arkaysaa qof dhalinyara oo isagana astaamihii iyo signs and symptoms iyo calaamadihii iyo astaamihii lagu garanayo dhiig yarida leh. waxaad arkaysaa qof dumar ah oo iyaduna xaamilo ah oo aad ula cadilan dhiig yarida. haddaba marka koowaad intaynaan u gudagelin qaabka loo tiriid gareeyo adoo gurigaaga jooga dhiig yarida ama qaabka loo daweeyo adoo gurigaaga jooga oo aynaan runtii isu taagin, marka koowaad waxaynu eegaynaa 5 sababa dhiigu inuu qofka ku yaraado. ta koowaad waa nutritional deficiencies, qofka inay nafaqadu jidhkiisa ay ku yaraato. qodobka labaadna waa iron deficiency, maadada ironta la yidhaahdo inay jidhkaaga ay ku yaraato. qodobka saddexaadna waa vitamin deficiencies, gaar ahaan vitaminka leh vitamin B12 oo jidhkaaga ku yaraada. qodobka afraadna waa disease, xanuunada ay ka mid yihiin malaariyada iyo TB-da iyaguna waxa ay sababaan in qofka dhiiggiisu hoos u dhaco oo uu yaraado. qaybta ugu dambaysa waa parasitic infection. haddaba muuqaalkan waxaynu ku soo qaadanaynaa qudaarta cagaaran ama qudaarta loo yaqaano green vegetable-ka, laba ka mida oo qofka si fudud dhiiggii sar u soo kicinaya. horta 3 shay ayaa ugu muhiimsan oo dhiigga soo kiciya: qudaarta cagaaran, hilibka gaduudan ee sida beerka, gelyaha, hilibka xoolaha laakiin hilibka gaduudana, iyo biyaha cad. saddexdaas ayaa waxay yihiin saddexda dhiigga sida caadiga u soo kiciya. qofku inuu biyaha cad aad u cabo, iyo inuu hilibka gaduudan u isticmaalo sida kelyaha iyo beerka iyo markaa hilibka caadiga ah ee gaduudan ee xoolaha, iyo qudaarta cagaaran. laakiin qudaartan cagaarani waa spinachka, kostada iyo saladhka oo si fiican loo maydhay oo la isku googooyay. kostada waa la karin karaa, waana la karsadaa, laakiin caleenteeda ayaa laba nooca: mid waa fresh oo way jilicsantay, midna way adagtay. ta adag waa in la kariyaa. ta kale sida saladhka ayaa loo googoosanayaa, saladhka ayaa lagu dhex darayaa inta si fiican loo maydho, kadibna qofku cuntada ayuu ku cunayaa. dhiiggaagu muddo kooban ayuu sar u soo kacaya. cabista biyahana waad badsanaysaa, nasashadana waad badsanaysaa. haddii aad hilibkaa gaduudana heli kartana waa isticmaalaysaa. intaasaynu ku soo ururaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.